Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka China. Channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor. Dalka China ama People Republic of China waa dal ku yaala bariga qaaradda Asia. Kelmadda China waa kelmad asalkeedu ka timaaday afka Persian oo loo yaqaan Qin. Xadaaradda dalka China waa xadaaradihii ugu horreeyay ee adduunka ka kaca 221 qarni ka hor intuu Nebi Ciise dhalanin ayay xadaaradda dalka China jirtay. Cabirka dalka China waa 9,600,000 oo kiiloomitir oo square ah. Xagga dalka China uu ka kooban yahay 22 gobol. Dalka China waa dalka afraad ee ugu weyn adduunka xagga cabirka. Tirada dadweynaha ku nool dalka China waa tirada ugu weyn adduunka xagga lagu qiyaasay in China ku nool yihiin 1,400,000,000 oo qof. Caasimadda dalka China ama magaalada madaxda waxaa loo yaqaan Beijing. Xagga magaalada Shanghai ay tahay magaalada ugu weyn xagga tirada dadweynaha ku nool. Diinta dadweynaha ku nool dalka China boqolkii 75 waa Bilaadiin. Xagga Buddhism uu yahay boqolkii 18. Xagga dadka Kiristaanka uu yihiin boqolkii 6. Xagga Muslimka uu yahay boqolkii 1.5. Luqadda rasmiga ee dadweynaha China ay ku hadlaan waxaa loo yaqaan Mandarin. Lacagta laga isticmaalo dalka China waxaa loo yaqaan Yuan. Madaxweynaha dalka China magaciisu waa Xi Jinping. Xagga kursiga fadhiistay sanadkii 2012. Xagga dalka China uu hal xisbi xukumo oo loo yaqaan Communist Party of China. People Republic of China waxaa lagu dhawaaqay sanadkii 1949. Dhaqaalaha dalka China waa dhaqaalaha labaad ee ugu weyn adduunka oo ku xiga dalka Mareykanka. Xagga dalka China uu yahay dalka ugu weyn ee alaabaha dhoofiya adduunka. Xagga afarta shirkadood ee ugu weyn adduunka ay yihiin shirkado Chinese ah. Dalka China sanadkii 1 milyan oo hektaar ayaa nabad guura xagga isbeddelka cimiladu uu yahay sababta ugu weyn. Waxbarashada dalka China xagga boqolkii 93 dadweynaha dalka China ku nool ay yihiin mutacalimiin. Tirada dadka af Ingiriisiga ku hadla waxay ka badan tahay tirada dadweynaha ku nool dalka Mareykanka. Boqolkii 50 alaabaha fayga ee adduunka lagu sameeyo waxay ka timaadaa dalka China. Dalka China kaligiis wuxuu soo saaraa boqolkii 25 sigaarka lagu cabo adduunka. Dalka China waa dalka afraad ee ugu weyn xagga dalxiiska. Xagga sanadkii oo kaliya toole ay soo booqdaan 50 milyan oo qof. Dalka China wuxuu ku yahay gidaarka weyn ee China. Xagga dalka China uu yahay dalka kaliya toole oo leh xayawaanka loo yaqaan bandada. Magaalada Hong Kong iyo magaalada Macau waa labada magaalo ee ku yaala China aanay xukumin dowladda dhexe ee China. Boqolkii 75 alaabaha adduunka lagu sameeyo ay ku qoran yihiin Made in China. Wixii su'aal aad qabtaan ama mawaadiic aad doonaysaan in aan ka hadlo fiidiyohaadka cusub ee soo socda, fadlan ku soo qor comment-yada. Channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu ku rajaynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh.
subscribe si videoda like gare, comment na xagga hoose ku qor.